kusoo dhawaada barnaamijkeenii sheekooyinka qur'aanka oo alaaba uu halkan idinkaga soo jeediyo Axmed Faarax Cali Idaaja. tanina waa sheekadii saddexaad oo ka mid ah sheekooyinka quraanka kariimka ah. waa sheekadii Nabi Huud. reer Caad waxay degi jireen meel la yiraahdo Al-Ahqaaf oo Yemen iyo Cumaan u dhaxaysa. intii muddo ah ayay barwaaqo adduun ku noolaayeen. wax walba oo uu aadanuhu jecel yahay ayuu Eebba ugu deeqay. markaas bay ila biyeele meel kasta ka jeexdeen oo dhulkii abuurteen. beero qurxa badan ayay samaysteen. waxay dhisteen aqallo waaweyn oo ay degaan. intaa waxaa u dheerayd awood xagga oogada ah iyo xoog dheeraad ah oo aan uunka kale la wadaagin. ha yeeshee marna isma ay weydiin halka ay barwaaqadaasi uga timid iyo abuurkoodu meesha uu ku asal leeyahay. garaadkoodu wuxuu siiyey inay samaystaan sanamyo ay u sujuudaan. sanamyo ay ku mahadiyaan haddii ay khayr helaan, markii ay dhibaata soo food saartana ay gargaar weydiistaan. intaa ka sokow waxay fasahaadiyeen arladii Eebbe. koodii xoogga lahaa wuxuu gumaystay koodii taagta daraa. koodii weynaana wuxuu ku tuntay koodii yaraa. dabadeed si uu kuwa awoodda haysta u hanuuniyo, kuwa taagta daranna uu ugu hiiliyo, isla markaana uu guud ahaan aadanaha uga daweeyo aqoongaabnida indhaha tirtay. si uu intaasba u suuro geliyo ayuu Eebba doonay inuu qoladaa u diro rasuul iyaga ka dhashay, rasuul ay afgaranayaan, sida ay u hadlayaan ula hadlaaya, ilaahoodii abuuray ugu yeeraya, baadinimada ay ku sugan yihiinna u caddaynaya. taasina waxay ka mid tahay naxariista Eebbe iyo deeqdiisa xaddiga weyn. Huud wuxuu ahaa nin reerkooda ugu laandheeraysan, ugu akhlaaq wanaagsan, ugu dulqaad badan oo ugu dabeecad wacan. sidaas buu Eebba ugu doortay inuu xambaaro fariintiisa una fidiyo diintiisa. waxaa xil looga dhigay inuu hanuuniyo caqliyadaa baadiyoobay ee waddadii toosnayd ka leexday. amarkii la faray ayuu yeelay. gudbinta fariintii uu Eebba u soo dhiibay ayuu dhabarka u ritay. wuxuu hub ka dhigtay nin walba oo xilkaas oo kale dusha ku qaadaa waxa ay tahay inuu ku hubaysnaado. oo maxay yihiin? kini adayg, buuraha dhaqaajin kara, iyo dulqaad uu aqoon laawayaasha kaga guulaysan karo. dibadda ayuu isa soo dhigay, isaga oo sanamyadooda diidaya, caabudkoodana ku ceebaynaya. wuxuu ku yidhi, tolow maxay yihiin dhagaxdan aad qoraysaan ee aad caabudaysaan, isla markaasna aad kaalmada ka jeeqaaqaysaan? awoodda ay leeyihiin maxay tahay? maxayse tari karaan? dhib miyay celin karaan? dheefsa ma hidin karaan? wax aan khayr idiin keeni karin, sharna idinka dabaali karin, sidee ba idin u caabudaysaan? sawtaasi caqligiinna iyo karaamadiinna quursi kuma aha. waxaa jira Eebba qura oo mudan inaad caabudaan, rabbi keliya oo ay tahay inaad xaggiisa u jeensataan. isaga ayaa idin abuuray, idinna asaaqa. isaga ayaa nolosha idin siiyey, mar dambana idin oofsan doona. waa ilaaha arlada idiin gacan geliyey ee waxa aad cunaysaan idinkaga soo saaray. ooga xoog iyo caafimaad qabta ayuu haddana idin siiyey, xoolahana wuu idiin badiyey. ilaahaas baa mudan in la caabudee, isaga uun rumeeya. ka digtoonaada xaqa inaad indhaha ka qarsataan ama aydun Eebbe ku kibirtaan. waanadayda haddii aad diiddaanna waxaa idinku dhici doona wixii ku dhacay qoladii Nuux oo xilligoodii aanu waxba idinka durugsanayn. erayadaa kolkuu ku lahaa, Huud wuxuu filaayey meel fog oo dareenkooda ah inay ku dhici doonaan, dabadeedna ay rumayn doonaan, ama ay inta caqligooda u gudbaan ay ka fakarsiin doonaan, dabadeedna ay hanuuni doonaan. ha yeeshee waxay kala hor yimaadeen wejiyo maahsan iyo indho wareersan. oo maxaa ugu wacnaa? waxay ka maqleen hadal aanay weligood maqlin iyo war maalintaas ka hor aan dhagahooda ku dhicin. waxay yidhaahdeen, Huudow, waxaan aad ku hadaaqaysaa maxay yihiin? sidee baad nooga doonaysaa inaan caabudno ilaah keliya oo aan cid kale wax la wadaagin? sow ma ogid sanamyadan waxa aan u caabudaynaa inay tahay inaan Eebbe ugu dhowaanno oo ay weliba agtiisa nooga shafeecaan? markaas buu ugu jawaabay, tolow, Eebba waa mid qura, cidina mulkigiisa iyo awooddiisa lama wadaagto. cibaadada runta ah isaga uunbaa mudan. waa ilaah dhow oo aan fogayn. wuxuu ka dhow yahay xawlmariidada.
haddii ay idinla tahay inaad sanamyada eebbe ugu dhowaanaysaan amaba ay agtiisa wax idinkaga tari karaan waad habowsan tihiin mugdi unbaad guraysaan tolow sanab caabudku eebbe waa idinka fogaynayaa taasina waxay muujinaysaa aqoon la'aantiinna inkastoo ay idinla tahay inaad wax garanaysaan iyagiina intay ka sii jeesteen nebi huud ayay ku yidhaahdeen waxaa tahay nin garaadkiisu gaaban yahay oo weliba aan miyir fiicnayn waxa aannu caabudayno ee aannu aabbayaasheen ka soo gaarnay sidee baad u ceebayn karaysaa midda kale adigu maxaad annaga naga tahay maxaadna dheer tahay sida aannu wax u cunno ayaad wax u cuntaa sida aannu u noolnahay si la mid ahna waad u nooshahay adigoo sidaas noola mid ah sidee bay ku dhacday inuu eebba adiga kuu doorbido gudbinta dhambaalkiisa iyo fidinta diintiisa waxaan kuu aragnaa inaad tahay nin been hawaasa oo been hawaasyada kale la mid ah nebi huud baa kolkaa ku jawaabay tolow caqligaabni iyo waalli toonihi ima hayaan muddo dheer ayaan idinku dhex noolaaye miyaad igu aragteen wax aad igu nacdaan doqonnimase ma igu dareenteen maxaase ku jaban eebbe farriintiisa iyo fidinta dacwadiisa inuu midkiin ku aamino taasi la yaab ma lehe waxaa la yaab leh dadka inaan loo soo dirin rasuul nidaam darro iyo diin la'aanna ay ku jiraan kollay anigu inaad i rumaysaan ka quusan maayo maangaabyadiinnuna samirkayga ma dhaawici karaan haddii aydun caqliyadiinna iyo maskaxdiinna ka fakarsiisaan waxaa idin caddaanaysa kelinnimada eebbe hannaanka la yaabka leh ee cirka iyo dhulka abuurta amankaagga leh falagga meeraaya iyo xiddigaha iftiima sidaas yeela oo eebba rumeeya dembi dhaafna weyddiista si ay diriirradu idinkugu hooraan xoolihiinna xoola la idinkugu daro xooggiinnana xoog la idinkugu kordhiyo gaalnimaha ku adkaysannina hana iga sii jeensannina waxaad ogaataan geerida kadib in la idinsoo saari doono ruuxii samafala naftiisa ayay u roon tahay kii xumi shaqaystana waa laga goyn doonaa naftiinna wax u horumarsada aakhiradiinnana wax u diyaarsada waa i kaas oo anigu farriintii eebbe idinsoo gaarsiiyey waxa aan idinkaga digayaana cadaabkiisa hoogga iyo ba'a huwan markaas bay waxay ku yidhaahdeen shaki kuma jiro huudow ilaahyadayada mid ka mid ahi inuu kuu cadhooday dabadeedna ku waalay oo iskaa daba mariyey caqligiina kaala tegey haddii aysan sidaas ahayn maxay yihiin erayada aan macnaha lahayn ee aad ku hadaaqaysaa erayada maskaxdaada uun ku jira ee aan meel kale dunida laga aqoon bal muxuu yahay dembidhaafka roobka lagu helo xooluhu ku bataan xoogguna ku kordho waa maxay maalinta qiyaame ee aad ku andacoonaysaa in nala soo saari doono kadib markaannu noqonno lafa duugoobay oo dhammaaday waxa aad sheegaysaa waa wax aan dhici karin noloshan adduunyada ah waxaan ahayni ma jiraan waannu dhimanaynaa waannu noolaanaynaa wax aan waayaha ahayn oo nalaynayaana ma jiraan midda kale muxuu yahay cadaabka aad noogu goodiyeysaa ee aad filaysaa inuuna haleeli karo hadalkaaga u hoggaansami mayno caabudka ilaahyadana ka hari maynee haddii aad run sheegayso soo daa waxa aad noogu dhaaranayso ee aad noogu goodiyeyso nebi huud kolkii uu hubsaday sida madax adayga leh ee ay xaqa u diidan yihiin ayuu ku yidhi ilaah baa igu og inaan dhab u dadaalay oo si walba farriintii uu ii soo dhiibay aan idinku soo gaarsiiyey sidaas baana ku wadi doonaa danna ka geli maayo guulguulkiinna iyo goodigiinna ilaah baan tala saartay ilaaha aniga iyo idinkaba ilaaha inoo ah oo wax waliba ay awooddiisa ku jiraan rabbigay wuxuu ku sugan yahay waddada xaqa ah ee toosan siduu ku ballanqaaday nebi huud kama daalin inuu farriinta eebbe qoladiisa u gudbiyo iyaguna kama waantoobin madax adaygoodii gaalnimada u horseeday sidaas waxay ahaadaanba maalintii dambe ayay arkeen daruur madow oo cirka isku ballaadhisay giddigood intay meel bannaan isa soo tubeen ayay u indhataageen oo ku farxeen waxay is yidhaahdeen waxaa muuqata hogal daruura oo noo da'i doonta way isu diyaariyeen beerahoodiina abuurkiibay ku rideen ha yeeshee huud baa u sheegay war ay moogaayeen wuxuu ku yidhi waxaa idiin muuqdaa daruur roobaad iyo naxariis midna ma aha waa dabayl cadaabeed oo ah wixii aad rabteen in la idiin soo dedejiyo wax yar kadibba waxay arkeen wax naxdin iyo cabsi ku riday waxay arkeen qalabkoodii iyo xoolihii lamadegaanka u daaqaayey oo hawada dhex heehaabaya waxaa sidata dabayl xoog badan oo neef walba iyo shay kasta meel fog ka tuuraysa argagax iyo baqdin ay la gariireen ayaa ka meel waayey
waxay u carareen aqalladoodii hoos bayna ka xirteen iyaga oo moodaya inay sidaa ku nabadgeli doonaan. ha yeeshee balaayada dhacday waxay ahayd mid guud oo aan cidina ka fakan karin. dabayshii ayaa ciiddii lamadegaanka kor u xambaartay, waxayna sidaas ahayd 7 habeen iyo 8 maalmood oo isxiga. iyagoo meyd wada ah ayay noqdeen wax dhulka daadsan. waxay u ekaadeen geeda timireed oo qalala jirdahood. mar qura ayay arlada dusheeda ka idlaadeen. mar qura ayay bogagga taariikhda ka tirtirmeen. rabbigaa dadka gardarra kuma cirib tiro, iyaga oo aan dembiilayaal ahayn oo wax hagaajinaya. maalintaas ayaa waxaa xagga Huud u soo cararay saaxiibadiisii xaqa rumeeyey. isaga iyo iyaguba waxay halkii ay joogeen ka eeganayeen dabaysha bacadka xambaarsan ee gaalada gumaadaysa. xero eebba dhigay ayay iyagu ku sugnaayeen, wayna xasiloonaayeen. waxay meeshoodaa iska joogaanba dabayshii dhaxanta badnayd ayaa degtay, noloshiina sideedii hore ayay ku soo noqotay. nebi Huud wuxuu u guuray Xadramowt, halkaas oo cimrigiisa intii ka harsanayd